kartaye noloshayda galada sugayniyo waqtigii wayna soo galay galada sugayniyo waqtigii wayna soo galay guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyone guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyonine wayaha isbura gordan sugayna la soo gaaray maante daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ka diyaarinay muranka dacwadda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. dacwadan la xiriirta muranka dhanka xuduudaha badda ayaa soo jiitamayay in ka badan 10 sano, balse dowladii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Juulaay ee sanadkii 2014 maxkamadda ICJ geysay kiis ka dhan ahaa Kenya oo doonaysay inay wada hadal lagu dhameeyo khilaafka badda. Soomaaliya waxa ay doonaysaa cabirka xadda badda in si toos ah loo xiriiriyo xadka dhulka, halka Kenya ay doonayso in la weeciyo baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay. waxa uu gaarayaa in ka badan 10,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. markii hore kiiska waxa uu ku saabsanaa in ICJ ay dhageysan karto muranka labada dal ayna go'aan ka gaari karto in kale. Abriil 2009 dowladii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Kenya ayaa kala saxeexday heshiis isfahan oo la xiriiray xadka badda ee labada dhinac. heshiiskaas waxaa dhinaca Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaasi ahaa wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah. dhanka kale Kenya waxaa u saxiixay Moses oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya. heshiiskan kuma jirin arrinta la xiriirta xadka badda, balse waxa uu dhigayay hanaakii loo mari lahaa in lagu xalliyo khilaafka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya. Agoosto 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood dheer kadib aqlabiyad ballaaran ku codeeyay in la laalo heshiiskii is-afgarad ahaa ee u dhaxeeyay labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Juulaay 2015 sanad kadib markii ay ku wargelisay maxkamadda inay dacwad u soo wado Soomaaliya ayaa rasmi ahaan kiiska badda u geysay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. xeerlayaasha Soomaaliya ayaa warbaahinta la hadlay xilligaas iyagoo sheegay in arrinta ay go'aankeeda ka gaari karto oo kaliya maxkamaddaasi, halka xeerlayaasha guud ee Kenya xilligaasi ay sheegeen in Soomaaliya ay doonayso bad aysan lahayn. December 18 2017 Kenya ayaa xirtay isla markaana jawaab ka bixisay kiiska ay Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Soomaaliya ayaa iyaduna dhankeeda bixisay jawaabteeda ku aadan codsigii Kenya ay maxkamadda ugu dalbatay in arrintaani dibadda maxkamadda loogu xalliyo isla markaana Soomaaliya iyo Kenya ay miiska wada xaajoodka arrintaani ku xalliyaan. xeerlayaasha Soomaaliya ee xilligaasi Axmed Cali Daahir ayaa ku adkaystay in Soomaaliya ay u aragto maxkamaddu ay tahay goobta kaliya ee lagu xallin karo arrimaha muranka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya ayaa ku dooday in heshiiskaasi uusan sharci ahayn maadaama uu diiday baarlamaankii Soomaaliya ee xilligaasi. Febraayo 2018 maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay in ay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. xaakimka maxkamadda ayaa u codeeyay in kiiska kadib ay markan ka hadli doonaan sharci ahaanta doodda Soomaaliya iyo diidmada Kenya.
hase ahaatee maxkamaddu weli ma aysan qaban taariikhda la dhageysan doono dacwadda badda ee xilligaasi laakiin qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa 7 February lagu sheegay in Soomaaliya ay dacwadda ku guuleysatay isla markaana dib loo dhageysan doono waxa hadda loo madalsan yahay in dacwadda mar kale dib loo dhageysto 15 bishan Maaj ee aan ku guuldarnay sanadka 2021